Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamo walaalaha igu xiran meel kastoo joogtaanba. Maalin wanaagsan, waqti kastoo idin tahay wacan wanaagsan. Intaa kadib maanta ku soo dhawaada jikadeena ama madbaqeena, madbaq waa af Carabi. Jikadeena dabshidkeena kulay Soomaali labadan bay ku noqonaysaa ku soo dhawaada. Maanta halkan waxaa lagu karinayaa qado. Marka qadadaas ayaan doonayaa inaan la wadaago iyo waliba sida markaa reemigu waqtiga jidaalka ay u nool yihiin. waayo nolosha miigu way kala duwan tahay xilliyada jidaalka iyo xilliyada roobka. Yacni jidaal qofkan fahmin waxa laga wadaa xilliyada roobka aynan ahayn. Marka dad baa xitaa marka ayna roobka ahayn dhaha abaarta. May abaar ma ahan. Abaar waxa la yiraahdaa marka xooluhu ay waayaan waxay cunaan iyo waxay laqaan oo dhirto dhan ay eber ka sii noqoto oo xilliga roobka uu dib dhaco laakiin xilliyada kala jidaalun baan u garanayaa. Marka aniga halka digsiinta la cararaya reemigu marka saan idin sheegay labada waqti noloshu way kala duwan tahay waxaana u sababa labada xilliga markaa roob la'aanta xilliga roobka oo markaa xooluhu manaafacaadkooda ay kala duwan yihiin oo xilliga roobka inta badan ciirtii baa la lolanayaa xoolihii dhan baa caana geel kuwa ari intaba marka xilliyadaas oo kale noloshu inta badan miiga waxa la cunaa caanihii iyo maxay tahay inta badan raashin iska caadi caanaha lagu darsan karo sida dadka qaar haday soo cunaan oo kale bariiskii cadda adigu cuntooyinka cadcad iyo caanihi ayaa mar walba reemigu cunaan laakiin waqtiga jidaalka ay xooluhu caana yareeyaan reemigu noloshooda dhan waxay noqotay sida magaalada oo kale canjeela la dubanayaa marqaba lagu cunayaa cuntada kale oo la suugeynayaa sababtoo ah caanihi wax lagu dirsan jiray maanta marka waa tanaaqadeena ku soo dhawaada bal sida ay tahay digsiga aniga halka ku meermeeranaya iyo alaabtii jikadii aan soo galay xilligu waa xilli duhura xogaa duhurku soo dhow yahay dad badan baa qada iga sugaya waliba rag u badan masha Allah xafadeena rag baa aad ugu badan xoolii bay soo shubin xitaa wadinka arkay wiil soo socda mar dhow yimaadeen arigii baa la soo shubay erayga shubid waxaan arkay dad badan oo markaa u maleynay waliba inay caasimada yihiin oo idhahaya shubid maxaa la yiraahdaa cunaa xoolaha ma la soo daadinayaa uma shubid waxa la yiraahdaa lama soo daadinayo kulay kaftan bay kala jeedaan laakiin waxaan dareemayaa erayga shubitaan in dadka qaar uu ku cusub yahay waxa loola jeedaa xoolaha la soo waraabinayo ceelka la geenayo marka si walba maanta jikadii aniga gabar ka ah halka waan qaadada dhaqay qaadadaasna wadanka lagu soo sameeyay ma sha Allah waxaan sameysanaynaa qadadeeni baan sameysanaynaa xilliga waa xilli qorrax kulayla oo inta badan baadiyaha waqtiga marka roobka xilliga roobka ahayn cimiladu mar walba in kasto wadankeena cimiladiisu ay mar walba kulushahay haddana way sii kala kulushahay mid kale reemigu waxa ay caadadu leeyahay waxa kamid ah halka dabka lagu shidanayo lama hariyo ama balbala lagama dhiso ama yacni meel hara lagama dhiso waxyaabaha runtii aan la yaabay ayay kamid tahay waayo reemiga dhan markaan wada maray meelo badan baan tegay kuwaan inkastoo hadda xaafadeena ay aad reer guuraa u ahayn haddana maba jirtaba halka qoraxda duurka wax lagu karinayaa insha Allah waxaan isku day doonaa inaan bal anigu aan bilaabo oo isku dayo hadii la iga yeelo weeye anigu reerka martiban ku ahaye waayo qoraxda aad bay kulushahay cimilada kulul qofku ku dhibaatoonay markuu duurka wax sameynayo marka waa taaqadadiisa u jeedaan waxaan isticmaalaynaa subag idaad baan isticmaalaynaa saliid cadeey maanta inoogu jirto maxay tahay inaan cunto ku sameysano mana fiicna saliida waa mid cudurro badan u keentay Soomaalida subagii uu kulul yahay yani biyaha weelka biyuu lahaa marka waa ugu fanfaniinkeeda ay soo gaartay saliidiisa u jeedaan oo iska daboolay saliidu marka waxyaabaha Soomaali cudurrada u keenay tahay dadka reemiga marka la sheekisto waxay ku leeyihiin xilliga aan saliida baranay saliid cadeeda baranay ayaa cudurrada noogu horeysay barigo hore waxaan isticmaali jirnay xoolaha subagooda haday tahay subaga sixinta la lulo haday tahay subagyada kale xoolaha markii la qasho laga sameeyo subaga geelo kale waxyaabo badan baa la isticmaali jiray oo dadkii hore ay aad u isticmaali jireen laakiin waayahan dambe ayaa la bartay saliid cadeeda caafimaad uma fiicna halka marka basashan ku jarjaranay qudaarta aan haysano ama qudrada aan haysano isla arki doona maanta aan bariiska ku kari doona digsiga marka hore waxaan ku shubnay subag baan ku shubnay kadib waxaan booska saliida basal baa lagu aan ku jarjaray basashii kadib waxaan ku daray shiishiid ama tabaandho ama xabuub yacni saa u taqaanid kulay baalka yarkaay yaanyada xabuubta ay shiidan ama yaanya miroole saa u taqaanid shiidan weeye waa la wada garanayaa kulay shiishiid inta badan Soomaali laakiin shiishiid bay u garanayaan ama ma qaninay tabaandho gasaac iyo waxba la yiraahdo Soomaali laajideedu iska badan yihiin waxa doontid bawaqooda waad garanaysan u jeedaan halkaas marka waxaan isku soo shiilay isku soo qaleeyay boobsiis oo muuqaalka ku furan cabaar baan shiilay
wuxuu ka samaysan marka meesha dhan ka samaysan tahay basal shiishiid isaa u taqaanid adigu lahjada doonto u aqoobe iyo maxay ahayd maraq jubbo sida arkaysa maraq jubba way cunaan marka waayo Soomaalidu inta badan hadda uu ka suulay maraq jubbahaas oo dadku waxay dhaanba xanuuno badan baa laga qaadaa si walba taa laakiin dadkeena way iska cunaan marka qudrada bariiska hadii xawaash adduun waxa la jirjiri jiray kabsar iyo tooniyo midna ma jirto reemigu inta oo kaliya haystaan qudrada marka in badan u raagaysa marka shiishiida iyo maraq jubbaha iyo maxay tahay basasha ka kooban ayay haystaan iyo baradhadan inta badan canjeelada u adeegsadaan marka basashii xoogaa soo gubatay waan ka bixinayaa wax kale meesha ma jiraan qadadeena marka saas ayaan iskugu dibaridanay muuqaalka boobsiis badan baan ku xirisay marka loogu caajisin waaniga halka xeeradii dhaqanaya ama saxankiisa u taqaanid bariiskii baan soo shubanayaa oo marka aan doonayaa marka runtii wax badan oo la qalay jiray yaayadii la jijibi jiray waxa dhan ma jirto way fududahay runtii marka si u fiirid hilibkii wax badan la kiri jiray marka hilibku mar walba ma haystaan dad badan hadii laga yaabo inay isweydiiso maxay dhacay dilaac bilaash baa la karsanaya hilibka xilli kasta xoolaha la iskama qalanayo xooluhu way dhamaanayaan magaalana ma dhawa marka waxay iska dilaac bilaashkaas iska cunaan marka waqtiga jidaalka tahay ama caano yaridu jirto oo way ku qasbayeen inay cuntada ku karsadaan xilliga la haysto caanaha laakiin waxa lama yaqaan waxay ku leeyihiin qashin way waa saxde waxa la isku dardariyay la isku maxay tahay gidgiduudan ama casaanka la isku dardarayo wax caafimaadka u fiican ma cuntada cad baa ka caafimaad badan marka xilliga xooluhu ay barwaaqada tahay ciduna wax suuga lama karsato badi lama badna waxa la cabaa caanaha ayaa la cabaa bariiskaas kale isagoo caano leh ayaa markasta la isticmaalaa subag saxin iyo caanihii adduun lagu cunaa sidoo kale digirta kale way isticmaalaan marka maasha Allah aad bay u wanaagsan tahay ujeedada marka muuqaalka aan kula wadaag qof walba uu garanayaa inta yar la isku dardaray ujeedku ma ahayn laakiin ujeedku wuxuu ahaa xogaa isbedelka marar badan baa soo aragteen caanihii iyo maxay tahay cunadii caadiga ahayd laakiin xiliyadan waxay tahay ujeedadu isbedelka yimid sida marka ay u maareeyaan noloshooda reemiga waqtiyadan oo kale nolosha sidoo kale in sidii magaalada kale ay u soo adeegtaan iska fududahay dadka qaar oo aaminsan magaalada waxa laga cunaa miyiga waxa laga cunaa wax maxay tahay aan magaalada oolin dad baa aaminsan marka waxaabay miyiga yaalay intii ugu badneed waa la soo wada qaatay marka bariiski waan qasaasilanay halkaas aan ku shubaynaa bariga hore waxa la yiri biilaanta waqtiyada hore biilaanta jirtay bariiski lama qasaasili jirin xitaa waa la iskaga shubay jiray wallahi duruufo badan baa dadku soo maray laakiin alxamdulillah maanta xaalku sidaa maahan cusbadii baa marka la ku darayaa runtii reemigu cusbada ma jecla aad bay cusbada u necbiin waxa arkaysaa xitaa hilibka karsanaya cusbada xal lagu daro yaani halka mid anigu waxa weey aan baadiya ku arko xitaa cusbada uma badna laakiin taa bedelkeeda sokorta u badan yihiin inagu waxa laga yaabaa cunooyin kale inay cunno dhandhanaan tahay oo wax dhandhanaansano hadii hilib tahay laakiin ayagu ma cusba dhan iskuma taxaluujinayaan laakiin sokorta ku waaleeyeen marka bariiska waan isku soo dardaray sida u jeeday jikadii baan kala aruurinaya ama dabshidkii marka halka la joogo waa iska dabshidkii jika qofna kama maqlayso qof dhahayo jikadii halka meesha dabka lagu shitaan waa dabshidka ka soo qaad sheega ma aragteen dabshidka ka doon ayaa laga yiraahdaa adigana gobolkaaga waxa laga yiraahdaa noo soo qor maadaama wax kala faa'iideynay marka weelkii qadada iska sii diyaarsanaya bariisku bobsiis qori waxay u dhigmaan sida gaaska kale muddo aad u kooban ayay wixii ku bislaanayaan neef dhan baa xitaa in yar lagu soo bisleynayaa marka waxyaabaha dabiiciga ah oo la haysto reemiguna ma sha Allah dadkuna haystaan qoryahaas kamida qoryuhuna waxa weeye waa markay qalalaan oo munaafacaadku ka dhamaado ay dhirtu qalalan tahay marka waa ka qadadeeni maanta jadwalkeeni gabar waxaan iska dhigadaan caadi ahayn bariiska la kacsan ka soo tuuraysa ma sha Allah runtii wax aad wanaagsan labada nololba inaad aragtaan oo barataan bariiska marka ma sha Allah biyo gursaday waxaan ku yiri waa kaas ma sha Allah uu noqday ugu dambeyn qadadeyna waa tanaasadaan ku soo baxday bariiska cas ama bariiska gudan ayaan ka soo tuuray runtii anigu ma jecel dooqiga marka ka hadlo waxba qar waan la wadaagaa sababtoo waxay tahay qof kasta kulli dooq buu leeyahay marka magaalada la joogo ayaan ka hadlay marka miyiga la joogo wax kasto aan ku cuninba waa la cunaa tanuna waa iska caadi oo cuntada kaliya la haysto weeye laakiin magaalada marka la joogo cuntooyinka shiishida ama yaanyada cas waxa cas lagu daro ma jeceli bariiska cad baan ka jecelahay maraq haday noqoto ama suuga haday noqotona mid cad waayo mar walba waxyaabaha caafimaadka u fiican baan jecelahay waxyaabaha sida u cas ma jeceli ama waxyaabaha gudgudan lagu daray si walba qadadeyna waa tasaa caafimaad ayaan ku cunay yaa ila mar hore cunay xilligan aan codeynay asxaabta waxaan leeyahay mar walba ila socotay aad bad mahadsantiin waan kaga mahad celinay sida quruxda badan oo ii daawanaysaan insha Allah biidnillah muuqaaladii wax badan aad iga barateen iyo meelihi aan u safri jirina sida in sheega mar badan
yaa roobkii waan sugaynaa meesha waan ku nasanayaa saan idin sheegay igama noqon dee inaan inta yar idin soo gudbinayay inta roob la helay ayaan meesha ku nasanayaa